بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkii ma garana xataa nambarkiisa casharkan laakiin casharkan wuxuu ku saabsan yahay waa class iyo prototype javascript saa ogtihiin waa luqad programming luqadaha programming waxaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin waxyaalo classeska sida luqada java waxaa aad loogu yaqaanaa inay tahay luqada classeska marka luqadan javascript waxay leedahay classes laakiin waan sharaxi doonaa insha allah classeska way ka duwan tahay luqadaha kale waxay classeskeeda ma aha classeska sida java iyo luqadahan kale sida c camal waxaan ka wada c lamid ma ahan way ka duwan tahay laakiin luqadan javascript waxaa loo yaqaanaa prototype language loo yaqaanaa prototype language loo yaqaanaa sababtoo loo dhahay prototype language waxaa weeye horta luqadan objects ku shaqeysaa wax kasta oo object marka objectska gudihiisa marka waxaa kusii jiro prototype waxa la dhaho so objectska markii aad ka gudubtay wixii aad already ka rabtay for example hadda waxaan sameynaynaa kaba soo qaad object la dhaho name and then kaba soo qaad waxaan leenahay names and then waxaan sameynaynaa objectigi waxaan leenahay name one aan leenahay kaba soo qaad name one waxaa weeye waa Mohammed and then we'll say name 2 so I have to give here let's say comma name 2 waxaa weeye waa kaba soo qaad faarax iskale so hadda save aan leenahay and then let's say console log names so geeskan haddaa fiirisaan waxaa arkaysaa so if we zoom in waxaa arkaysaa magacii so name 1 waxaa weeye waa Mohammed name 2 waa faarax so object waa ahaan so luqada hadda korna aan ka hadalna object luqada javascriptiga wax kasta waa object almost so objectska aad ugu shaqeysaa that why luqadan loogu yaqaanaa object oriented language luqado badanna way jiraan sida python iyo java iyo dhammaan kulligood waa object oriented waa laakiin markii aad fiirisid objectiga oo javascript markii gudaha usii gashid waxaa arkaysaa wax la yidhahdo protogan waxaa weeye waa property oo objectiga weeye so object kasta oo samaysid oo javascript proto wax uu leeyahay prototype laga soo gaabiyey marka protogan waxaa weeye waa property uu leeyahay object kasta oo la sameeyo oo javascript gudaha haddaa usii gashid waxaa arkaysaa all these methods ama functions aa isticmaali kartid sida camal constructor waan isticmaali doonaa so waa idin tusi doonaa waxaan dhan kulligood idinma tusahay laakiin maybe inaan kasoo qaadano one or two for example constructor iyo get waxaan isticmaalaynaa where is it inside the constructor we'll use get where is it get prototype of labadaasaan isticmaalaynaa so I'll show you everything insha allah so hadda waa fahantay prototypeka luqadan javascriptiga waxaa loo yaqaanaa prototype language loo yaqaano luqadaha kale waxaa loo yaqaanaa class language sida luqada java waxaa loo yaqaanaa class language marka taas inaan niyadda ku haysaa la rabaa marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa number 1 waxaan ka hadlaynaa prototypeka so luqadan waxay soo martay marxalado kala duwan ay soo martay marxaladda ay soo martay ka hor ES6 ka hor before ES6 waxaa weeye 2015 ayaa luqadan waxaa lagu soo diray waxyaalo badan for example classka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu soo diray 2015kii waxaa ku jira waxyaalo badan for example let iyo constant iyo waxyaalahaas waxaa lagu soo diray 2015kii marka waxaan ka hadlaynaa bilowga prototypeka marka hadda runta hadii laga hadlo waa laga gudbay so for example haddii aad ka shaqeynaysid project javascript prototype ma isticmaalaysa waxaa isticmaalaysaa classes aa isticmaalaysaa classeska xoogaa ka yara qurxan ka yar clean garaysan ka yar fudud prototypeka waa shaqo badan waa inkastoo ay okay yihiin oo la isticmaali karo laakiin shaqadiisa badan waa arki doontaan so let's go hadalka aan yareyno more action let's talk may dhihi jireen alright aan sameyno waxaan sameynaynaa actually let's use var maxaa yeelay waxaa weye prototypeka waa before ES6 u ahaa marka just to keep it constant micnaha wax kasta inay isla ekaadaan var aan isticmaalaynaa so var waxaan leenahay user waxaan rabnaa marka inaan sameyno prototype oo user inaan sameynaan rabnaa marka waxaan leenahay function aan sameynaynaa functionkan
wuxuu naga caawinayaa inaan sameyno prototype maxaa la jiray prototype object. Alright, so waxaan sameynaa waxaan leenahay name iyo email aan gelinaynaa, and then waxaan furaynaa functionkii. Function gudihiisa waxaan rabnaa inaan gelino obviously magaca, which is this.name. This-tan waan soo marnay hadda ka hor, cashar dhan aan uga hadlay, qayb dhan aan uga hadlay. This waxaa laga wadaa basically markii aad sameynaysid qof cusub oo template waa hadda waxaanan sameynayna hadda waa template caadi ah. Qofka marka aan sameyn doono halkan ku sameyn doono asagaa laga wadaa. Marka qof cusub markaa sameysid adoo templatekan isticmaalayo, qofkaasaa laga wadaa. The next person markaas this waxay isku bedelaysaa qofka ku xigo. Alright, let's go to this dot email equal to email. Okay, so hadda waxaan sameynay prototype-kii aan sameynay. Prototype-ku marka wuxuu u baahan yahay, waxaan rabnaa inaan sameyno method. So hadhowdin waa arki doontaan markaan classka ka clean garaysano ka fudud, laakiin waa arki doontaan hadda waxaan sameynaynaa methodka si loo sameeyo waxaa weye marka hore waxaa u yeeraysaa prototype-kii aa u yeeraysaa, kabacdi waxaa leedahay dot, and then waxaa leedahay prototype aa leedahay, and then waa sii wadaysa waxaa leedahay dot. marka waxaa rabtaa in aad function ahaan magac inaa u bixisid weye. waxaan waa wax micnaha wax qaban lahaa basically, waa method weye. So waxaan leenahay dot details aan leenahay, let's say details equal to function, and then functionkan aan furanaynaa. Functionkan wuxuu soo celinayaa return, wuxuu leeyahay messagekan marka waxaa weeye waa message micnaha informationka aan halkan kusoo bandhigi doono oo aan isticmaali doono templatekan habkii usoo bandhigmi lahaa waay. Marka waxaan leenahay marka hore qofka magaciisa aan qoraynaa, so name, and then waxaan leenahay waxaa ku dartaa so plusta hadda ka horna waan ka hadalnay, waa concatenation wax la dhaho, waa isku xiridda la isku xiraayo codeka iyo stringiga adiga aad samaysatay. So this aan leenahay name, and then we say plus, and then waxaan leenahay email, and then plus this dot email. Alright, so hadda waxaan sameynay marka userkii aan u yeernay oo ah prototype-kan sameynay. Prototype-ka waxaan nidhi marka waxaan rabnaa function soo bandhigayo markii information template-kan la isticmaalo sida habkan usoo bandhigayo. So wuxuu usoo bandhigayo magaca semicolonkaas, and then magaci qofka, and then email semicolon emailka qofka. waa arki doonaa marka console-ka aan dhahno ayaan arki doonaa. Let's clear the console sida u shaqeynayso. So hadda waxaan sameynaynaa marka qof cusub aan sameynaynaa. So let's say constant, let's say Mohammed equal to new. So keywordka new waa muhiim inaad taqaanid, waa inaad baratid si fiican niyad ugu haysid. Markii aad isticmaalaysid templatekan oo aad ama class ahaado ama prototype ahaado, waxaad isticmaalaysaa qof cusub markaad sameynaysid, waxaad isticmaalaysaa new. kabacdi waxaa u yeeraysaa prototype-kii, waxaa leedahay user, kabacdi waxaan leenahay qofkii informationkiisa. marka nameka qofka waa Mohammed, emailkiisana waa mohammed@gmail.com. okay, so hadda waxaan sameynay marka qof cusub aan sameynay. qofkan haddaan rabno inaan u yeerno waxaan leenahay console log, and then waxaan leenahay Mohammed dot. So dot markaan dhahno waa qofkan informationkiisii waa inuu habkan usoo bandhigmo, name, email, qaabkaas. So waxaan u yeeraynaa detailkana u yeeraynaa. So we'll say Mohammed details, and then that's a function. So we close functionkii aan u yeeraynaa oon leenahay colon u diraynaa functionka basically. So hadda as you can see xoogaa haddaan kala bixiyo waxaa arkaysaa wuxuu u yeeray name Mohammed, email Mohammed@gmail. sidii aan ka rabnay waaye, oo habkii aan u baahnayn inuu halkaan noogu soo bandhigo ayuu noogu soo bandhigay. okay, so taas waa meesheeda. waxaa weeye waa waagi hore sida loo isticmaali jiray prototype-ka. waxaan oo dhan all this is very complicated. dad qaarkood aad ugu wareeraan, especially markay ku cusub yihiin luuqadda. so waxaan kaloo sameynaynaa
haddii aan rabno in aan sameyno option kale oo kaba soo qaad qofkan user soo maaha waxaan rabnaa inaan sameyno admin kaba soo qaad so qofkan kaba soo qaad website aa leedahay websitekaada waxaa rabtaa userska inaynan lahayn wax gooni ah adminkana inuu lahaado kaba soo qaad inuu role lahaado oo admin ah oo maamuli kara wax so waxaan sameynaynaa marka first thing aan sameynayno so halkan waxaan ku qorayaa comment inta waxaan leeyahay this is a extend prototype prototype-ka ayuu kasoo jiidanaa information kabacdina wax kusii darayaa waa basically alright so first thing aan sameynayno waxaa marka adminka inaan sameyno so constant waxaan leenahay admin equal to and then we open the function kan furaynaa waxaan soo qaadanaynaa informationka already ku jira halkan oo name iyo emailka ahaa kama bedelayno waxba kaas name email laakiin hal waxaan ku daraynaa halkaas wax oo ah role maxaa yeelay qofkan waxa uu ka duwan yahay userka okay role markaan ku darno waxaan sameynaynaa marka halkan waa marka meesha waxyaalaha isbedelayaan oo ay dadka qaarkood prototype-ka ayna ku jeclayn waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo waan u yeeraynaa hadduu ilaah ku roon yahay functionkan kore oo ah prototype-ka so waxaan leenahay user we'll say user dot call aan leenahay callkaas waa method way oo ay javascript leedahay wuxuu micnaha u yeerayaa wixii aad gelisa meesha ayuu u yeerayaa so first thing waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay this ayaan leenahay thistan maxaa yeele waxaan u baahannahay laba waxaan u baahannahay halkan waxaan u baahannahay whatever halkan ku jiro oo aan u yeerin sida nameka emailka iyo waxaan u baahannahay this haddart inta waxay tilmaamaysaa marka adminay tilmaamaysaa so waxaan leenahay userka userka call kan micnaha waxaan leenahay admin call user aan leenahay basically waxaan leenahay userka isticmaal informationkiisa basically wixii ku jira isticmaal so markaas dhahno so just say name iyo email okay so taas markaan sameyno we'll go to next line waxaan sameynaynaa marka waxaan create gareynaynaa magaca roleka waa cusub yahay halkan waa ku cusub yahay maxaa yeelay kuma jiro qaybtan kuma jiro kore oo originalki kuma jiro hadda waxaan sameynaynaa section kale oo admin aan sameynaynaa laakiin waxaan isticmaalaynaa userkii aan isticmaalaynaa oo extension aan ku sameynaynaa okay so markii aan u wacno markaan qaybtaas sameyno wixii inaan isku xirno waa hadda iskuma xirno wixii oo adminka iyo iskuma xirno iyo userka wuu u yeeray adminka wuu u yeeray userka laakiin iskuma xirno so waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo object dot get waa kana wixii aan ku sheegaa daayato get prototype of waxaa soo qabataa prototype-ka waxaan leenahay user iyo admin so admin markaan dhahno waa inaan ku darno waxaan ka wadaa waxaan u yeeraynaa marka hore admin kabacdi user aan u yeeraynaa and then waxaan leenahay userka waxaa u yeertaa prototype-ka userkana u yeeraan leenahay prototype so userka prototype-kiisana u yeernay adminkana u yeernay so hadda labadooda waa isku xiran yihiin they're very connected marka hadda so tan hadhowdii arki doontaa markii aan sameynayno ilaa hadduu ku ruron yahay markaan sameynayno classka tan waxaa loo yaqaanaa extend waa function ama wax u isticmaalaysid inaad isku xirtid laba wax markaan classka galno shaqadu way fududaanaysaa hadda tan waan intusaya habka waaga hore loo isticmaali jiray ayaan idin tusaa hadda badanaa dadka ma isticmaalaan tan unless uu qofka micnaha tan jecel yahay ma ogi cid badanaa hadda isticmaasho ma jirto sidaan hadda wax u sameynayo waxaan idin tusaya laakiin lacalla haddii classka meesha laga bixiyo ama classka uu shaqeyn waayo ama classka waxyaalo kale lagu bedelo kan ayaa isticmaali kartaa oo still wuu jiraa wuu shaqeynayaa laakiin dadka hadda badanaa ma isticmaalaan so waxaan sameynaynaa marka prototype-kii aan u sameynaynaa adminka so admin waxaan leenahay dot prototype dot magacii functionka sameynaynaa kan waxaa methodkii loogu yeeri lahaa adminka informationkiisa so waxaan leenahay admin details aan leenahay and then functionkii aan furaynaa
so we'll say open the function and then we'll say return marka waxaan leenahay email waxaan ku dareynaa sida hadaayo waaye laakiin hal waxay ku kala duwan yihiin hadda this waxaan leenahay name plus kan waxaan leenahay email ma kan waxaan ka wada name kan waxaan ka wada email space email and then waxaan ku dareynaa the last one waxaan ku dareynaa rollka so we'll say rollka waxaa weeye qofka meesha uu noocu yahay kan hadda admin waaye so we'll add admin halkan so let's say plus this dot role and then that's it so hadda aan soo xirnay prototype-ka bahalkan adminka la extend gareeyo laga soo extend gareeyo ama laga soo jiitay userka so hadda waxaan sameynaynaa bis marka user cusub aan sameynaynaa we're gonna create a new person qof cusub si aan u test gareyno so let's create a new person let's say constant aan leenahay let's say Ahmed Amal equal to new so new waan ka hadalnaa data waa method ay leedahay JavaScript micnaheedu waxaa laga wadaa waxaad copy ka sameysaa prototype-kan ama classka so class markuu yahay sidoo kale waaye laakiin copy ka samee waxaa isticmaashaan leenahay waxaa isticmaali kartaa waxaa u leedahay access methodka sida functionkan ayaa waxaa u leedahay access markaa new dhahdo kabacdina waxaan leenahay admin qofka informationkiisa qoraynaa so Ahmed waa namekiisa emailkiisa ahmed@gmail and then kan wuxuu uga duwan yahay kan kale wuxuu leeyahay role so rolekan waxaan ka dhigaynaa admin alright so hadda let's save okay so aad save gareyna kii hore noo soo baxay soo jeedid hadda waxaan leenahay console log aan leenahay marka console log waxaan u yeeraynaa Ahmed dot waxaan u yeeraynaa admin details aan u yeeraynaa oo ah function kan weeye oo wixii micnaha informationkii soo bandhigayo so hadda save markaan dhahno as you can see waa isbedesha sheekada hal waxay ku kala duwan yihiin userkii adminka waxay ku kala duwan yihiin there's something missing we haven't added the email so halkaan ka ilowna wax .email plus alright so as you can see kan admin kan waxa weeye userka caadiga ahaa qofkan waa admin weeye so name email and then role uu leeyahay qofkan oo ah admin so waxaa dhigi kartaa as long as qofka admin uu leeyahay oo role admin ah waxaa sameysaa leedahay u ogolo waxyaalahan hadduuna qofka lahaynna waxaa dhigi kartaa accesska u ogolaanay so that's usually application marka dhisaysa saasaa loogu isticmaalaa so habkan waa habkii hore marka so this is the old way it looks way complicated dadka qaarkood waa ku wareerayaan so habkan hadda lama isticmaalo let's just comment the console logger exact thing hadda waxaana aan sameynay yaan class aan ku sameynayna marka so this is how class loogu sameeyo so this is a class waxaan sameynaynaa marka habka class loogu sameeyo waxaa weeye it's a little bit more organized habka micnaha uu isku dubaridan yahay micnaheedu ma aha codeka inuu ka yar yahay laakiin uu isku dubaridan yahay so waxaan leenahay waxaan ku bilaabanaa calaamadaasaan ku bilaabanaa class and then waxaan siinaynaa user and that's it waa furaynaa so hadda classka noo bilowday meeshan waxaa meeshii kore aan dhehaynay var user and then function and then all that stuff aan sameynaynay kan uu ka duwan yahay classka wuxuu leeyahay waxa la constructorka waxaa weeye dhismihii waay basically wixii dhisayay classka constructorka wuxuu qaadanayaa waxyaalii parameterska adiga aad rabto qaadanayaa so hadda waxaan gelinaynaa name iyo email kabacdi constructorka gudihiisa waxaan ku dhisaynaa this dot name equal to name iyo this dot email equal to email ayaan ku dhisaynaa okay so constructorka hadda waa noo dhamaaday meeshii awal aan sameynaynay oon dhehaynay user.prototype.details waxaasaan dhehaynay all we have to do halkan waxaa weeye we just come down here constructorkan kasoo bixinaa and then waxaan leenahay details
and then we just function already waa noo samaysan yahay and that's it. So hadirtaan return aan leenahay halkan, and then waxaan gelinaynaa wixii aan u baahnayn aan gelinaynaa. So halkan waxaan ku tusayaa for example waxa la yiraahdo template literal waxa inta dhilayd quotation aad gelin lahayd waxaa gelinaysaa calaamadda oo ka hooseyso escape-ka keyboardkaada ayaa gelinaysaa, kabacdi waxaa gelinaysaa whatever aad rabtay. So hadda inta waxaan leenahay name aan leenahay, and then nameka waxaan rabnaa marka inaan u yeerno magaca. So instead of aan dhehaynay hadayta plus aan dhehaynay, hadda waxaan leenahay calaamadaan aan gelinaynaa calaamadda dollarka, and then waxaan gelinaynaa calaamaddan qaansada. Template literal la dhahaa, micnaheedu waxaa weeye adigoo ku jiro quotationkii plus iyo concatenation uma baahnid. So dhowr waxaan isku dul baranaynaa hadeertaan oo classka anagoo ku jirna waxaan baranaynaa template literal waxa la dhaho. So uma baahnid inaad plus dhahdid, uma baahnid. So inta waxaan leenahay this dot name, haddana kan waxaan leenahay we could just go here and say email, and then template literal kan soo qaadanaynaa template literal. So waxaan sameynaynaa waxaan leenahay this dot email. So labadaas hadda waxa noo yaalo. Okay, so markaan taas sameyno we're already done with the qaybtii ugu horeysay oo markii noqoto methodkii iyo wixii loogu wici lahaa iyo all that stuff waa dhameynay. Hadda qof aan sameynaynaa, let's say waxaan leenahay let Farax, I don't care new oo ahayd waan hore usoo baranay, and then waxaan leenahay user, qofka informationkiisaan gelinaynaa, waxaan leenahay Farax iyo emailkiisa oo ah farax@yahoo.com. I think faraxyaasha yahoo isticmaalaan. So waxaan sameynaynaa marka cancel log aan leenahay, waxaan u yeeraynaa marka Farax, waxaan leenahay Farax dot detail function kana u yeeraynaa marka. So exact same thing kan hadda wuxuu ku organize gareysan classka ku organize gareysan. Waxa u yeeraysaa qof cusub sameynaysaa ka soo qaad qof cusub, magacii markaa sameysid magacii wuxuu galayaa halkan iyo halkan u galayaa. Markii aad this time waxay tilmaamaysaa Faraxi tilmaamaysaa hadda. So when we say aan u yeerno, as you can see we have an issue, so user already declared ku qoran. Macnaheedu waxa waa meeshan koraan u sheegnay already user aan nini. So let's just call it something else. Kuwan. All right, admin kana sidoo kale, let's just call it admin1. Okay, so and then this one, let's just call this user and this user. Okay, there's more, line 25. There's this user too. All right, line 25. We have a okay, so adminka too. Okay, so adminka one inaan ka dhigno waaye. Everywhere ay ka muuqdo waa inaan ka dhigno wuxuu ahaa. I would say this one too. All right, line 27. This one. Magaca kale inoo bixinaa noo rooneed. Line 31. What's wrong with line 31? They saying can access user. Okay, so let's just actually comment waxyaalahan dhan oo kore because we're not using it anymore. Let's just comment that out. All right, so waxaan ku shaqeynaynaa qaybtan hoose bisan ku shaqeynaynaa, so we don't even need qaybtaas kore. So as you can see saa ujeedid waxaa soo baxday informationkii exactly sida hadayta idiin sheegayay oo aan ku sameynay prototypekii ayaa soo baxay, and also template literalkina si u shaqeynaya waa ujeedaan. So template literalka basically waxaa weeye calaamadda waxaa isticmaalaysaa oo instead of quotation isticmaalaysay ama single quotation waxay dhahaan, waxaa isticmaalaysaa calaamadda ka hooseyso escape-ka keyboardkaada ayaa isticmaalaysaa.
marka that's one way oo aad u sameyn kartid template literalka marar badan oo u baahnaanaysa template literalka waana habka casriga oo wax loo sameeyo. Okay, so sideen u sameynaa marka extensions u sameynaa. So if we wanted to create a like had the user ano yaal admin hadaan rabno inaan sameyno se u sameynaa. So adminka waxa u sameynaa we're just going to go down and inta waxaan sameynaa comment aan leenahay class extended. Okay, waxaan sameynaa marka halkaan markaan sameynayno extensionka waxaan leenahay class admin extends user and that's it. Okay, so shaqadu aan bilaabatay. All you have to do is just waxa leedahay class cusub oo ah admin wuxuu extend gareynayaa ama soo jiidanayaa ama sii dheereenayaa userka. Macnaha userku wax ku sii darsanaya oo sii qabsanaya. Haddii kale haddaadan userka waxba ku dareynin userka iska isticmaalaya, laakiin hadda kan waxa weeye waad sii badinaysaa ama sii baaxinaysaa waaye userkii. Okay, so marka waxaan sameynaynaa marka constructor. Obvious constructor wuxuu qaadanayaa parameterskiisii iyo wuuna furmanayaa. Constructorka waa function way. So constructorka waxaan gelinaynaa name, email iyo role aan gelinaynaa. Waxaa kale oo jiro halkaan another thing oo cusub oo haddeertaan aan inaad baratida u baahan tahay. Waxaa jiro waxa la dhaho superkan waa wax inaad gelisa u baahan tahay markasto. Waa every time extension aad sameynaysid ama class aad copy gareynaysid, if you wanna make a copy of the classka wixii ku jiray, so wuxuu soo qaadanaya superka waxyaalahan soo qaadanaya. haddaad copy inaad ka samaysid always waa ina super u yeerto, haddii kale wixii kuma shaqeynayaan. Superka marka wuxuu qaadanaya waxyaalihii kor ku jiro soo jiidanaya, just a name iyo emailkii soo jiidanaya. And then waxaa kaloo sameynaysaa waxaan ku daraynaa wax cusub. So waxaa weeye waa rolekii cusuba and then we just say roll and that's it. So hadda waxaan sameynaa marka waxaan soo jiidanay extension, waxaan soo jiidanay classkan waxyaalihii uu ku jiray oo aan ka rabnaan ka soo qaadanay, kabacdina wax kale aan ku darnay oo ah row. Constructorkana waxaas dhan naga caawinaa. Constructorka wixii habka qaabeedka loo dhisi lahaa weeye wax. Okay, so hadda waxaan sameynaynaa marka so we have everything. Waxaan ku daraynaa marka new method. So awal waxaa noogu jira halkan detail soo maaha. Inta waxaan gelinaynaa admin detail aan gelinaynaa. Admin details waa function cusub weeye. Waxaan isticmaalaynaa of course sida template literalki aan isticmaali karnaa. We just have to do that and then say name and then calaamada template literalka, calaamada dollarka and then brackets kaas and then waxaan leenahay this dot name comma and then waxaan leenahay email calaamada template literalka waxaan leenahay this dot email and then the last one would be literalkan gelinaynaa iyo calaamada and then waxaan leenahay this dot row. waxaana ku darin magacii ka horreeyey, so we just have to say row waxa kaasa. So hadda waa noo dhamaaday extensionkii waa noo dhamaaday adminka. So meeshii awal wax badan aan sameynaynay hadda waxay wana organize garaysan yihiin. So as you can see halkan waa adminkii waa isleeyahay everything waa isku xiran yihiin halkan. Everything is a little bit organized marka noqoto qaybta classka. Prototype is kind of like confusing waaye marka qaarkood. So hadda waxaan sameyn karnaa we could create our new maxaa la dhihi jiray qof. So let's say let's say Hamdi is equal to waxaan leenahay admin and then waxaan gelinaynaa Hamdi emailkeeda waxaan leenahay hamdi@gmail.com iyo roleka qofka oo ah admin. Okay, so haddana we can console log Hamdi dot admin details. Marka function kaasna u yeerinaa. So hadda as you can see markaan aan save dhaho waxaa soo baxay Hamdi iyo waxeedii informationkeedii. We have an issue marka. So we haven't invoked the new. So wuu noo sheegaysaa ujeedid, which is good inaad qalad aa heshid. Maalidooda qofa wuxuu yidhi niyo waxaa naga caawisaa habka loo hela qaladaadka. So this one soo mujeeda wuxuu leeyahay uncaught type error.
class constructor admin cannot be invoked without new wuxuu ku sheegay exactly waxa u baahned wuxuu ku leeyahay ma heli kartid qof cusub adiga oo newgi sameynin so newgi aan ka iloonay so adoon newgi sameynin ma shaqeynayso leeyahay so as you can see we have Hamdi iyo information keedii role keeda waa admin and then Farah waa ka saabnaan ku taagan yahay as usual I'm just kidding yeah so that's literally it and markii noqoto classkana waa waxa u baahantay inaad baratid markii aan bilaawno React iyo frameworkyada kale classka ma isticmaalaan prototype-ka marmari dif ayaa arkaysa prototype-ka laakiin hadda class kale isticmaala inkastoo even React-ka laftirkeeda class ka sii dhaqaaqayso classkan lagu sheegay ma aha sida classka Java taas aan kala bilaaway arno inaan idin sheegay waxaa la dhahaa classkan syntactic sugar la dhahaa markii imaado JavaScript classkeeda syntactic sugar waxa weeye waa wax macnaha sokor lagu dul daadiyay camal basically it's just waxa weeye waa dress camal waa dhar yar loo geliyay ma ahan basically hoos markii loo fiiriyo waa prototype basically this is the prototype laakiin sababta JavaScript ay u keentay classka dadka ka imaanaya Java iyo ka imaanaya iyo C# iyo C++ ka imaanaya they know class way yaqaanaan dadkaas so dadkaas loo fududeynaya oo la dhahaya okay you don't have to worry about prototype-kii waxaan iyo waxa la isku xiraayo habka prototype-ka isku xiraayo already waxaan sameynay hab cusub oo class laakiin run ahaantii classka waa laga maarmaa you don't even need it haddaad taqaanid prototype uma baahnid classkii so syntactic sugar marka waxaa laga wadaa luqadda JavaScript dadka sameeyo ayaa waxay dhaheen dad badan waxaa jiro class rabo marka prototype-kii waxaan ku dul shubeynaa wax class u eg laakiin class ma ahan run ahaantii just iskaga eg tahay bas so syntactic sugar-ka saas wey so exactly class ma ahan it's just waxa wey waa just qurxin oo prototype-ka la qurxinayo la habeenayo wey which is good waana aad bay u fiicantay especially markii dadka la qabsanayaan luqadan JavaScript-ga way u fududaanaysaa since luqadaha intooda badan ay leeyihiin class so wax kaloo ii qoran ma jiro insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad u mahadsantiin insha Allah cashar kalena waan soo wadaa luqado kalena waan soo wadaa insha Allah dulqaada loo baahan yahay dad badan waxaa jiro aad micnaha ii weydiinaya waxaas ma keentid aniga laftirkeyga nololaan leeyahay life aan leeyahay I have things to do and I have projects dad aan la shaqeeyo family so markii aan firaaqeelan soo gelinayaa but you have to be patient waa qori kartaa waa dhihi kartaa waxaas u baahanahay laakiin haddaa hore u qorta haddana marka la soo celinayo haddaa dhahday Python noo soo samee I'll write a note waan qoranayaa and my goal is mustaqbalka insha Allah inuu channelkan lahaado almost all languageska in lagu sharaxay casharo kala duwan oo detail loogu sharaxay sida hadda JavaScript-kan ugu soo sharaxay inaan luqad kasto step by step ugu sharaxo ayaan rajeynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo marka intaas kusoo gabagabeynaa aad u mahadsantiin dhammaantiin subscribe channelka share garee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.